muuqaal aad wax badan ka faa'iidi doonto. Habo muuqaalkan oo dhammayso. Halkan waa kanaalka dunida. Ahmed ibn Khaldun al-Hadrami dhalashada 1332 ilaa 1460 miilaadiga. Waxa uu ku dhashay waqooyiga Afrika, Tunis, gaar ahaan Andalus. Waxa uu ku noolaa kadib markii uu ka qalin jabiyay jaamacadda Saytuuna, dalalkii ku yaalay waqooyiga Afrika oo ay ka mid ahaayeen Sakra, Qarnada, Jaya, Talamasan. Waxa uuna gaaray dalka Masar oo Suldaankii Masar Al-Daahir Barquuq ku soo dhaweeyay, waxaana loo xilsaaray garsoor inuu u noqdo, oo halkaa wuxuu u deganaa in ku dhow rubac qarni 784 ilaa 808 Hijriga. Wuxuuna geeriyooday Allah u naxariistee 1460 miilaadiga oo cimrigiisa ahaa 76 sano. Waxaana lagu aasay meel u dhow albaabka ee Masar, dhan ahaan waqooyiga Qaahira oo loo yaqaano qabuuraha Suufiyada. Waxaa loo yaqaan Ibn Khaldun aasaasaha cilmiga taariikhda. Yaa amaanay? Waxaa amaanay niman reer galbeed ah oo ay ka mid yihiin Arnold Toynbee. Markuu yiri Ibn Khaldun waxa uu soo saaray falsafada taariikheed. Falsafadaasna waxa uu waa midii ugu weyneyd ee bini'aadanimo gaaro. Asxaabta hal iyo labo haddaan ka tataabano dhul yar oo ka mid ah dhulka Falastiin, hadda loo yaqaano marinka Gaza. Waa dhul yar oo ka mid ah dhulka Falastiin oona lagu xiray shacabka Falastiinta. Dadka degan Gaza waxay gaarayaan 1.5 milyan oo qof ah, waxayna xuduud la leeyihiin Masar oo ka xigta koonfur galbeed iyo Israa'iil oo ka xigta koonfur bari. Sida la xaqiijiyay, guryo badan oo Yuhuud ay leeyihiin ayaa laga dhisay meelo badan oo ka mid ah Gaza 2005. Waxaa dhacay inay Yuhuuddu dib ugu laabtaan guryo dhiska ay ku hayaan caradaas, laakiinse weli waxay gacanta ku hayaan meelo badan oo ka mid ah Gaza sida garoonka diyaaradaha iyo xeebaha. Yuhuuddu waxay ku indha adag yihiin inay Gaza ka mid tahay dhulka Israa'iil, ayaga oo maalin kasta ku wada dil iyo isbaarid aad u fara badan. Asxaabta hal iyo labo haddaan markaana ka tataabano xariiqinta cagaaran. Xariiqinta cagaaran waa calaamad xabad joojin ah oo Israa'iil iyo wadamada Suuriya, Masar, Lubnaan iyo Urdun ay ku heshiiyeen sanadka markuu ahaa 1949. Waa markii uu dhammaaday dagaaladii Yuhuuddu iyo Carabtu. Xariiqintan cagaaran micnaheedu ma ahayn inay Yuhuuddu iyo Carabtu ay kala qaybiso. Waxay Israa'iil ugu tala gashay inay qabsato dhulka ay markaas gacanta ku haysay, isla markaasina ay dhul badan kasii qabsato Carabta. Dagaalkii Lixda Beri oo dhacay 1967 waxaana ka mid ahaa daanta galbeed, marinka Gaza, buuraleyda Golan iyo Siinaa, carada Masar. Asxaabta gabagabaan joognaa markaana yaa soo saaray biology-ga, halkuu ka yimid. Biology-gu waxaa soo saaray niman Giriig u dhashay oo sahmiyey walxo kala duwan, kuwaas oo ku guuleystay sahmintii ay wadeen. Biology-gu waa cilmiga barashada nooluhu iyo nooluhu. Noolaha siduu doonaba ha u jiray ama ha u ekaadee, barashadu habku nooluhu u shaqeeyo. Qofku baranaya cilmiga biology-gu waa qof raba inuu wax ka ogaado sida ay wax noole u shaqeeyaan iyo wax ay ka dhisan yihiin, iyo siduu waxa aan nooleen loo isticmaalo, sida walxo badan oo adduunka dul yaal sida dhagaxa. Nooluhu muxuu ka samaysan yahay? Nooluhu wuxuu ka samaysan yahay unugyo. Unugu waa wax ugu yar ee waxa nooluhu uu ku dhisan yahay maanta. Noloshu xagee bay ka timid? Nooluhu maaha wax ku yimid tadawur. Rabbi ayaa abuuray, khalqay. Nooluhu dhammaantiis waxa abuuray Alle, wax walba kara. Nooluhu ma aha wax iska yimid oo aan la garanaynin meeshuu ka yimid. Dadku waxay ka yimaadeen Aadam. Nebi Aadanna waxaa laga sameeyey ciid. Dhirta Allah khalqay ee iskima iman. Nooluhu dhammaantiis ujeedo ayaa loo khalqay. Ujeedadiisina waa inay ogaadaan inuu Alle wax walba abuuro, isagaasna ay caabudaan. Unugu Allah khalqay, amar Allana waa uu ku shaqeeyaa.
biology-ga waa cilmiga barashada